حاجين تاجنا هذا هذا وحن تاجنا هاي مركي الدولة دي دونتي كلا بربورتي وحن تاجنا هاي دولة محكة كوابن تاي دول مدح بناني أو دول نمدو تاجن تاي قرن محكة كوابن دول شعب إيوه مدح بناني صفرن تيجوا استيت كواحد إلالية وحكومة دي دولة وها هاي هذا أنا deegaanadii دي maamulka waa noo qaybsan yahay safrantigii madax banaanidii waa noo qaybsan tahay mid meelay taala xaga waxa u xigay walaalaheen Soomaaliland oo sheegay inay ka baxeen bad Soomaaliland gooni isku taageen marka inta ku dhex jirtay federaalka ah sheegto qoloba maamulkeeda gooni u haysataa macnaheedu waxa waaye madax banaanidii way qaybsantay hal meelo laga xukumo ma jirto maxaa kale oo qaybsan resource-ki waa qaybsan yahay ciidankii waa qaybsan yahay maxaa keenay wali la isma aaminin dadka wali kama soo kicin dagaaladii iyo colaadii sokay is aaminaadii kama imaanin taas waxa ku garanaysaa sida dastuurkeena loo dhigay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha uu magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo ra'iisul wasaaraha wasiirku uu magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo wasiirku agaasimaha waa magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo waxa saas loo sameeyay waxa waaye ilaa dadku ay ka soo gaarayaan inay hay'ado iyo dawlad u dhismaan in indhaha la isku wada hayo 4.5 la keenay dawladnimadeeni baarlamaanna waa jira xukuumadna waa jirta laakiin saasay tahay dana qabiila wax lagu qaybsaday ilaa la iska aaminayo qaybsanaantii way jirtaa wali marka dadkii boogi inta la dhayay is aamineen midoobeen dawlad mid dhisteen ma aysan dhicinin boros waxaan ku soo jirnay jiitankaas iyo gurguuradkaas maxaa marka loo baahan yahay dawlad kasta oo marka timaada maxaa laga rabaa inay dadka isku raadiso waa koow ogolaato waxa la yiraahdo consensus building inay dhisto ijmaaca ama midnimada dadka inay ogolaato tala wadaag isla guddoon talada in la isla guddoomiyo ilaa laga gaarayo marxalo qof iyo cod ah oo qofka hogaamiyaha ah gabar iyo wiil waxay tahay loo soo dadku ay soo doortaan markay shacabka Soomaaliyeed ku doortaan haysataa mandate buuxa oo ku matali karto dadka Soomaaliyeed inta ka horeysa ma haysatid waxaan u soconaa wadadii aan ku heli lahayn mandate buuxa oo legitimacy ama waxa sharciyada la yiraahdo qofka hogaamiyaha inuu ku helo ay tahay yaan jidkeediyaan haynaa marka maxaa loo baahay intaan wadadaas ku socono ka waran hadii jidka traffic jam ku qabsado baabuurka ma ku riixi kartaa inta doonto oo shay la raamay waa inaad 20 inta socon kartaa waa gurguuranayna hala yaabinina gurguurashada Soomaalida ay ku jirto duruufta sida ah waxaan u baahanahay marka inaan gurguuradkaas ku tagno annagoo buuxda oo qofka uu heli karo sharciyad buuxda maxaan ku soconaynaa isla guddoon iyo is ogol annaga labaas hal ku dhigno ah hadana wada jir isla guddoon iyo isla guddoomin iyo isla ogol saasa lagu wadayaa wax kasta waa in la isla ogolaadaa ilaa la gaarayo qof haysta mandate buuxay dadka ay soo doorteen laga gaarayo